diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee droniska ayaa inta badan waxay maalmihii la soo dhaafay ay duqeymo xagga cirka ah ay ka geysanayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. meelaha ugu badan ee diyaaradahaasi ay duqeynayeen waxaa lagu sheegay in ay ahaayeen saldhigyada ciidamada Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. haddaba markii toddobaadyadii ugu dambeeyay ay halkaasi ka bilowdeen duqeymaha lala bartilmaameedsanaya dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxaa bilowday barakac baahsan oo ay sameynayeen dadka ku nool hareeraha ay duqeymaha ka geysanayaan diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka. qaar ka mid ah dadka ka soo barakacay deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa 24 saac la soo dhaafay waxay soo gaareen deegaanka Lafoole oo ku yaala duleedka ceelasha biyaha ee gobolka Shabeellaha Hoose. haddaba si aynu wax badan uga ogaano arrimaha barakaca dadkaasi ka yimid gobolka Shabeellaha Hoose warbixin amuurtaasi ku saabsan waxay noo soo diray uriyahayaga Cabdiweli Cali online. deegaanka ceelasha biyaha oo ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose isla mar ahaantaana dhaca inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye ayaa iminka waxaa si aad ah looga dareemayaa horumar dhanka ganacsiga ah waxaana ah kuwa sii kordhaya goobaha ganacsiga ee laga hirgelinayo deegaanka ceelasha biyaha. inkastoo howlaha ganacsi ee ka jira deegaankan ay yihiin kuwa sareeya taas oo laga dheehan karo mashquulka ka jira suuqyada deegaanka ayaa haddana dhanka kale deegaankan iyo nawaaxigiisa waxaa ku nool dadyow fara badan oo barakacayaal ah kuwaas oo ka soo hayaamay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay ka dhacaan dagaallo iyo duqeymo dhanka hawada ah. haddaba waa sidee xaaladda dadka barakacayaasha ah ee ku nool deegaankan misana ma jiraan wax howlo horumarineed ah oo ay sameynayaan maamulka ka jira deegaanka oo hoos yimaada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya? su'aalahaas iyo kuwo kale oo la xiriira waxaan weydiiyey ayaan Xasan Xaaji oo ah gudoomiyaha maamulka degmada Lafoole oo ay hoos yimaadaan ceelasha biyaha iyo nawaaxigeeda. bulshada horumarinteeda deegaanada sameyntoodii sidii waxyahoo kale ragga waa uga shaqayn jiray meeshaan oo meel cusub ma ahayn oo meel aan hor kale u jiray marka maasha Allah ilaahay noo fududeeyay inkastoo ay waqtiyo wuxuu ahaay xaaladeeda iska xunyaan lagu soo aaday laakiin inta badneen shaqooyinku waa iska qaban. waa gartay deegaankan ceelasha biyaha ilaa Lafoole waxaa ku sugan dad badan oo barakacayaal ah soo hayaamay gobolka gobolka Shabeellaha Hoose oo meelaha qaar wadiga ka go'ay meelaha qaar dagaalada ka dhacayaan iyo duqeymaha dadkaasi ku sugan halkan ay mala fulantaan oo dibadejin u sameysaan arrintaas wallaahi goob badan aan dejinay dadkaas oo ka yimaadeen sida Baayo Boqol oo kale gobolka Shabeellaha Hoose iyo qaar ka mid ah balcad laga soo gaaray gobolka badan sida waxaan dejinay Nasri Tree arkiska sukadiisa iyo meel calaamada ah waday deganaayeen hay'adihiina oo khayl aman qaarna wuxuu uga helnay inta kale inuu wadayay sababtoo ah waxay ku soo aadeen dabayaqadii oo sanadkii bilowga sanadkii xilliga hay'adaha imaajin inuu xilliga hadda taagan dadka hadda ku sugan meelaha ay deegaansan tirkoob ahaan ma tirkoob wallaahi qaarna waa iska noqdeen laakiin intooda badan inkastoo ay joogaan ilaa iyo 7 kun tiikuna hadda ku beegan deegaanka ceelasha biyaha waa deegaan weyn oo ganacsiyo badan baa ay ka jira sidee ula macaamishaan dadweynaha ku dhaqan ee ganacsatada halkan? wallaahi ganacsatada iyo maamulka kaalinta ugu weyn ah hadda annaga wuxuu ahay bulshada ka haysano waa ganacsatada maamulka duusadkan ganacsata iyo lahayn la shaqaynayo maba socon karo hadda laamiga oo kale oo jajabay 1 kiiloomitirna ma dhamo 500 oo xoogaa raacsan oo muddo naga jajabnaayo baawurtii ku hormari jireen oo naga jajabnaa hay'ad nooma sameyn waxaa iska kaashada ganacsatada iyo maamulka oo hadda wajiga labaad aan ugu gudbi doono. wada shaqaynta marka ay ka dhaxaysa adinka iyo bulshada ilaa xad xagee leegtahay aad iyo aad sababtoo haddaad bulshada la shaqaynayn ama aysan kula shaqayn lama shaqayn kartid hadda annaga kaalinta ugu muhiimsan oo is leenahay ganacsatada iyo bulshada maamulka waa kaalinta kuwa dadka nala shaqeeya. wallaahi kaalinta ugu fiican aan is leeyahay gobolka Shabeellaha Hoose maadaama oo hadda gabdho oo
gudoomiyaha haweeney way joogaan laakiin ka degmo ahaan aan keliya ka joogo isleeyahay rag dhan oo meel wada jooga hal gabaroo la joogtana inay wanaajinayaan maa inay wax kaleynayaan ma qabo degmooyinka gudoomiyaashooda gudoomiyaha gobolkaba iyo intooda badan macal amnigooda kaalinta koowaad iyo ahmiyadda ay siiyaan maamulada degmooyinka qaar ee gobolka lacaga ay qaadaan cashuuro ah oo dib loogu soo celiyo ganacsatada iyo deegaanka maamulkiina ma qaadaan lacagaas wallaahi annaga maamulkeena cashuurtaas ma qaadaan waayo waxaynu u qaadin xilligii loogu talagalay waa xilligii madaxweyne shariif uu joogay systemka asagoo la diyaarinayna waxa waaye dabayaaqadiisii oo icitaankiisa iyo kala wareegii kusoo aaday laakiin howlaha xilligii loogu talagalay in la dardargeliyo xilligaas sababahaas awooda u istaageen deegaankan iyo dadka ku nool adiga ayaa ka mas-uula gudoomiyahooda baa tahay koonfur galbeed isbedel guud baa ka dhacay madaxweyne cusub baa dhibaataan la doortay maxaad ugu baaqaysa madaxweynaha cusub madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed dadka wax kasoo dhisaan ka mid ahaa waxaan uga baaqayaa isaga iyo wasiiradiisa iyo xildhibaanada kaalinta ugu horreysay inay gobolka shabeellaha hoos siiyaan marka xigtana deegaanka lafoola ay siiyaan oo waxyaalaha ka jiro oo hadeer annaga meesha ku nabadda fiicanaan nahay wax barbaleenaan ka qabna ma laha laakiin madaxweynehena xilliga ugu horreysa uu imaanayo gobolka shabeellaha hoose waxaan rabnaa inuu deegaanka lafoola soo booqdo cabdiweli cali online barnaamijka bandhiga tv-ga caalamiga ah ee universal gobolka shabeellaha hoose